kaasi jaraa'id kadib ayaa wariyaha VOA Maxamed Xaaji Xuseen oo jooga Washington waxa uu waraysi la yeeshay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf oo ugu horreyn waxa weydiiyey su'aal ahayd waxaa la sheegay in dibka socda ee dawladda bilowday ee ka waran ninka warka sheegaya oo beer magaceedan ku hadlaya oo guriga waa la weeray waa la yaqaan ku yahay si toos ah wuxuu la shaqeeyaa maxkamadaha maladuu la shaqeeyaa maxkamadaha kuwa dadka leenayo oo dadka argagixisa ka dhex seed u aragtaa dadkan maydka ah ee dariiqyada la jiijiidaya telefishinada adduunka laga soo gudbinaya caasimadii aad joogtay waddankii aad madaxweynaha see kula muuqataa mayd ninkii jiiday hadda wuxuu yahay mayd baa la duway waa maqlay telefishin ma fiirsan waa maqlay waa wax dhici kara haddii dagaal socdo geeri waa dhacaysaa marka meedintay oo xamarintay ku dhacday cadowgii dilay inay haddana intay jiitaan ay gudaan oo magciisii haddee iyaga maaragtay isku maragfuraya waxay yihiin bahalnimada ah oo sharaf darrada ah oo badawnimada ah halkaasay ka muuqataa annaga haddii qof dhinto xataa qofkula dagaalamaya marka ma laydinka taagroonaaday waxaa laleeyahay waa ciidamadii dawladda iyo kuwii nabad ilaalinta waxa la jiidaya miyaa laydinka taagroonaaday dagaalka su-aal baan ku weydiiyey dagaal haddii la galo geeri waa dhacaysaa hadda qolo waa la dhacin karaa malakamana guulaysan doona haddii alaydimo madaafiic bay dawladdu u isticmaalaysaa goobaha shacabku ay degan yihiin baa madaxweyne la leeyahay marka maxaad madaafiicda u isticmaalaysaan maxaan u isticmaali waya dhexdiisay ku jiraan shacabku ha iska saaro markii nimankaa shacabka ka dhex baxaan shacabku waxba gaari mayaan waxaan rabnaa shacabku inuu iska saaraya ilaaha naga baxa dhibaatada idinkaa nagu wada balse dhibaatada iyagaa wada dawladda ma wado meeshii xabadi ka soo dhacdo waa duqaynaynaa annagu cid kastaa ku jirta hadday shacabku ku jiraan xataa waa duqaynaysaan waa duqaynaynaa maxaa yeelay shacabka in laga dhigta himanship in laga dhigta maaha shacabku inuu meesha ka baxay waa u dignay shacabka waxaanu ku yidhi xaafadahaas dagaal baa ka socdee ka baxa inta dagaalku socdo waa lagu kala quusanayaa shacabka digniintaas waa qaba